qaybtana waxaan oga hadlaynaa coronavirus oo isla markaa adduunka ku hayo faraba'an dad badanna ay u geeriyoodeen. Mareykanka uu ugu horeeyo oo haatan tirada sii cagacageynayo 57,000 halka inta laga helayna ay kor u dhaafeen milyan kiisaska. Weynaydani ayaa waxa ay sheegtay maalin un kadib markii ay ka soo laabatay aaska saygeeda. Haweenaydani waxa ay dadka kula talisay in ay si adag ugu hoggaansamaan amarka bandowga oo aysan guryahooda ka bixin. Andy Wenis oo 53 sano jir ah ayaa u geeriyooday COVID-19 6 bilood un kadib markii uu la aqalgalay xaaskiisa oo 25 sano ay wada socdeen, waxayna markaasi ka soo laabteen dalxiis ay ku aadeen qaybo ka mid ah dalalka caalamka. Xaaskiisa Sandra ayaa dadka ka codsanaysa in aysan jebin sharciga kala fogaanshaha. Waxa ay sheegtay in fayrasku uu albaabada guryaha taagan yahay. Sandra Weyni oo 58 jir ah ayaa sheegtay in saygeeda uu caafimaad qabay markii lagu arkayay calaamadaha xanuunka coronavirus. Waxaa sidoo kale ay sheegtay inay ku kaftamisay isla markaana mar walba ay dalxiis aadaan ay dhihi jirtay in uu ku dhaco qabowga ama waxa loo yaqaan borokiitada. Calaamadihii xanuunka uu qabay ayaa ka daray ayay tiri, qandhadii ayaa sare u kacday, qufaciina wuxuu ku sii xoogaystay, wuxuuna go'aansaday in uu isbitaalka aado oo uu dhakhtar la kulmo. Mr. Weyni ayaa tiri isaga ayaa gaarigiisa kaxaystay kadibna waxaana soo kalkaaliso oo noo sheegtay in ay neefta dhibayso isla markaana xaaladiisu ay liidato, sidaas darteedna ambulance la saari doono oo isbitaal kale loo gudbin doono. Waan ogaa ayay tiri in xaaladiisa cuslaatay kadib markii uu guriga ka baxay si uu dhakhtarka ula kulmo. Ayay Sandra tiri aragiisa ayaa iigu dambeysay.